حاليا قينوله وي ماركتي agaasimayaasha waxaa dawladda hoose mid ka mid ah Cabdiqani Ibrahim oo maanta soo diyaariyo waxqabadkiisii waxaan soo dhaweynaynaa UNCDF aadan xasan bataan soo dhaw Cabdiqani waxaan ku mahadcelinaynaa sida muxuu ahaa hawlkarnimada leh ee uu ku dadaalay runtii muddada oo xilka waaxda qorsheynta hayay waa dawladda in muxuu uu yahay bridge adag oo active ah oo shaqadiisii si fiican uga soo baxay dhinacyo dhowr dhinac qodob baan yar taaban doonaa mid waa dhinaca shaqaalaha midna waa dhinaca agaasimayaasha midna waa dhinaca waaxda mas-uulku waa sida waalidka oo kale markaad aragto waalidka carruurtaada ama ubadkaaga oo dadaalaya mid dukaan yar furtay oo intuu maaragtay meelaha lagu sheegi lahaa wax kale oo hagaajisanayo musbaar yar ka soo qaadanayo la daala dhacaya wad kabaysaa waad ku farxaysaa macnaheedu waxay tahay Cabdiqani agaasina waxba iyo mas'uuliyadda wada saaran tahay haddana waxaan uga mahadcelinaynaa sida maaragtay qiimaha leh mar walba dadaalka uu doonayo inuu waaxdiisa ka horumariyo waxaan halkaa ka sii wad si laba laab dadaalkaaga كل دليل باتهاي دليل بينورنا هاي فريق بمارك وحنا نهاي سفرة أما تسافر وحنيرتا هل كان هاوشا بينو أما وحنا بلشة ده هاينو ماشي هاي بينو بارا نتي هاينو تاريخ فوق دونا مركب واحد سكعد ويقف دليل ميل جويني واحد بدل يسكب بدلان يدو أنا دليل يدي تذكرنا لكن هذا أكتيفيتي جيو في فرعون واحد كنت تقف كنت دليل تياي ومركب الدنيا وطن iyo maaragtay mustaqbalkiisa in laga fikro ama la eego ama waddankaasi sidoo uu ekaan doono sanadaha soo socda ama inta dambe meed hore waxa la qiyaasaa dhalinyarta sidoo uu fikiraya waddankaas marka la qorsheynayo goob cidda maaragtay siday noqon doontana dabcan waxaa la eegi karaa cidda hagaysa marka horta waaxdan waa muhiim weeye marka laga yimaado qofka jooga waa waaxda runtii u ah mishiinka waxaa dawladda hoose weeye waa qorsheyntii muddo badan oo seminar ku maqnayd Finland oo kale waxa weeyaan dawladda hoose oo decentralization policy waxa la yiraahdo la barayay waxaanu inta badan la noo sharaxay waaxda qorsheyntu sida uu shaqeyso caasimadda labaad ee dalka Finland Turku ama caasimadda hore 12 cisho seminar ku jiray waxaanu markaa ay waaxda qorsheynta la'aanteed tallaabo ma qaadi karaan waxa kale waxaa jirta waaxda qorsheynta dhulka laakiin maca waaxda qorsheynta dhulka haddaanay waaxda qorsheynta degmadu qorsheynin ama aanay nidaamin inay u samaynin oo aanay hagin tallaabo ma qaadi karaan insha Allah waan gaari doonaa haddii Ilaahay yiraahdo agaasimayaasha kale ee dawladda hoose runtii si fiican u shaqeeyaan sida Cabdiqani u soo bandhigay waxqabadkiisana waxa la idinka fadhiyaa soo bandhigtaan annagoo shaqada qabatay saad shaqeyseen baa laakiin sida aad u shaqeysaan waa inaad idinkuna soo bandhigtaan wuxuu wax banaayay la wadaado sharaf bayna noo tahay mas'uuliyad ahaan agaasimayaasha iyo waxqabadkooda soo bandhigayaan anagana waxa looga fadhiyaa kii guud ee macalkooda ku jiray inaanu dadka soo bandhigno insha Allah marka waqti la hadiyay waxaan ku soo koobi lahaa waxaan u sheegi lahaa hay'adaha localka iyo kuwa caalamiga cidii doonaysa inay wax ka qabato degmada haddii aanay soo marin xafiiska qorsheynta dawladda hoose waxba yaani xisaab lagu xidhinaana daayay waayo qorshaha xafiiska qorshe wuxuu ogaanayaa ummadda waxa loogu talagalay la gelinayo waxaan loo wado inaanay uga baahnayn meeshan ay wax kale uga baahi badan tahay matalan hay'adda waxa sidaa iskuulna u dhisto tuuleeblaayo xafiiska qorsheynta buuggii baa yaala baahidii dadweynaha taala waxa laga eegayaa meeshaas maxay u baahan tahay ma iskuul bay u baahan tahay ma caafimaad bay u baahan tahay ma biyo u baahan tahay loo qodo balayo maxay tuuladaas u baahan tahay already waan mahaynaa wixii ay u baahnay xafiiska qorsheyntuna wuxuu ka maaragtay u fududeynayaa inuu tilmaamo farta ugu fiiqo baahida meesha taala oo aan iskuul iyadoo leh aan iskuul dambe oo ma faclayn laga daba dhisay iyadoo maaragtay dhakhtar leh dhakhtarkan laga garab dhisay baahiyaadka dadweynaha oo dhan baa yaala xafiiska waxaan u sheegaynaa hay'adaha markaa iyo ururada bulshada iyo kuwa maaragtay maxalliga iyo kuwa kalaba ciddii doonaysa inay degmada wax ka qabataa
haddii aanay xafiiska qorshaynta soo marin way iska noqonayaan taasina waa taa kolley dhiirigelin bay naga mudan yihiin sanadkaa dhammaaday annaga lafteeda waxaanu qorshaynay dadkii uun aanu islahayn la soo diyaariyey way ugu maaragtay xagga dhinaca activity-ga dhinaca shaqada dhinaca tadriiska saxiix xuquuqa dhinaca soo xaadirka dhinaca shaqo wanaagga dhinac kastoo ay tahay dadkii aanu islahayn ama la soo xulay in sanadkaa 2014 ay ahaayeen dadkii loo gartay shaqada inay abaalmarin ku helaana runtii shahaadooyin baa loo soo diyaariyey goor gaaban hadalkeed gaaban waxaan kusoo gabagabeynayaa systemkii hore waxaad ogtihiin shaqaale inay tababar badan qaateen waxaad ogtihiin inay wax badan isbedeleen waxaanu doonaynaa mustaqbalka la wadaa Soomaaliland oo dhan in loo sameeyo muxuu ahaa daato isku wada xidha ilaa madaxweynaha ilaa gobolada dalka ilaa wasaaradaha dhammaantood oo dhaqdhaqaaqa muxuu halkaa lagala socdo aad baan ugu mahadnaqayaa waaxda arrimaha bulshada Marin Xaddi Axmed oo runtii muddadii koobneed ay joogtay dardar gelisay shaqada iyo waaxdeeda waxaan leeyahay waad mahadsan tahay waa degmada keliya ee Gabiley qof dumar iyo agaasimo buuxa oo waaxeed oo weliba shaqada intaa leeg ballaaran oo ka hayo oo waxaan dalka intiisa kala leeyahay Soomaaliland maanta marka aad tagto inaan laga soo helin baan malaynayaa gabadh agaasimo ka ah xafiis marka waynu soo dhaafnaan u malaynayaa ragga oo aarsi haween oo adkaysta markiina waxa way wixii hore dhici jiray inta gabadha la garaaco weliba la odhan jiray tusbaxa qoortaada soo carmi la waayo marka dambe yani wax badan ay isbedelay dumarkeenu runtii waa dumar qaali ah oo karti badan haddii laga faa'iidaysto hooyadu waxaad arkaysaa يعني سنين دون سكوري هذا إنه قرحسه سرير سكوري هذا ترى ما أنت شيء بدي شو كل بدي نعود شيء يسوي إنه واحد نوع قرحيان وكنوها قاشيان ويبغى كات كيس بدي حكى فرد حفيسير رجعوا كات كيس بدي وإحنا نقول كنت رجعنا هذه لا هي لا أنت عارف صف البداية قاسم يا شيلا الكلام عندي يقول ده إنه مستقبل كا حبلو الناس نيات واحد عشرة مين بيكاين كنتي وقتي هره isbedel baan ugu sameynay meel fiican bay istaagtay marka maanta ilaa waqtigaas isbedel ugu sameynay waaxda cashuruhuna isbedel fiican bay wadaayo kor bay u socotaa iyadana waxaan leenahay aad iyo aad badbaadsantii shaqadiina halka ka sii wada wadanku wuxuu ku dhismayna waa cashuur astaanta muwaadiniinta waa cashuur bixinta haddaan cashuurta la bixin waxba dhismi maaya marka intaynu aynaan qaadaynin ilaa mushaharkeena inaynu cashuurno oo aynu 40% cashuur qaadano wadamada hore maray Yurubta aynu arkayna horu jiitay wax kale ma qaataan dakhliga ma soo galo dadku baa cashuur bay qaataan mushaharkaagu ma 40% cashuur noqonay wax lagu qabanay marka taana waan gaari doonaa laakiin cashuurta haday tahay ardayda haday tahay liisamada haday tahay wax kasto cashuurta yaa la rabo qalina cashuurta la bixiyo waaxda cashuurna aad baan ugu bariyanay waaxda hawlaha guud dowladda hoose runtii waxa jirta isqabsi badan oo dawladaha hoose dalka harakeeyay oo dhinaca ka socda waaxda hawlaha guud waxaad arkaysaa meel walba la isku dilayo ama xabad la isku ridayo ama maaragtay meel kale la isku weerarayo waxa sharaf ma Gabiley oo dhulbeerada oo la xajeclada halka bariga wada saab ku garanaya geela laga qaado Gabiley beeraha la kala qaada laakiin wax maaragtay magaalada gudaheeda ama dhulka aan xukuno oo la yiri qof baa qof ku dilay ama xabad baa qof kale baroor ugu dilay waxa weeyaan malihi ma naan arag wali dhicina mayso umana fadhinayna dhacdo marka waa in leeyahay aanu dheernahay weeyaan dalka intiisa kale oo dhulka la isku dilay anaga la isku dilay dhaqanka iyo sharciga iyo nidaamka iyo cadaalad waxbaan marayna marka waxa la guud injineer weyn baa jooga cali cilmi oo injineerada Soomaaliland oo jooga macalinkoodii واحدة هؤلاء كنا وحنا يوصل عيسى الله سيد كلام في عندي هذه واحد ما ممكن ما يده وواحد وحويا وما ممكن صدق حالي دي منه مركل لقى هيبقى ما يرجع يحوي أي ما يرجع واحد ما ممكن ما يده وما ممكن صدق حالي دي مدوي أقسمه واحد لو بهاي يومنا إن يمارك تدرك ديان شغلة إنك كم واحد بس كمدة وهذا تاي حسابك هذا تاي بدأ كله حسابات كده محوها حفيز كاسي isbedel ka dhacay awgeed wax badan ay iyagu iska bedeleen xafiiskaasi wuxuu dheer yahay xafiisyada kale
وحبيري هي آمنة وحبيري هي حتى أنا حفيز كان توجينا واحد بلد وما أنت يلا أو المرأة ومحرك سيستم كان حسابات قال هو يعني كمبيوترايزنج يا عصري هيدا تشيب بروجرام نوع عمالة حتى أنا حفيز كان توجينا مو ماركتي مرجع من هذه مرجع على وضع اليوم كرات ما بنقدر لا مرجع يعني نسيب حفيز عشورها مدح قيمتي ستوك فرسمها مركا اسمها اليوم سعادي اللي ما تحفيز كذا حضاني حفيز كان السراد شوقي يا عبد الله محمد حديد يسوون هذا كمان وقاعدين واحد قال مركا إن حبلوه يسنا مش شغالين يعني اليوم اللي في إسبوع يعد شغلة كوبا الشعر عليها يسن قبلها الناس إني هذا شغلة حفيز السوري أحسن ووضع حفيز كواحد جنسيته وما حتى الديوان قلت نقضي ولح وحقا كنت إنه بسوي ريق دوران حتى أنا أيام يفيز شوغير اسمه واحد بدل رقم حفيز كلوكا طبعا مراسو الشريك حتى أنا شوغير شوفي يسوي واحد بدل رقم نظافة يو كوالي قريب ضدك يشتغل في عائلة وضوء حسن محمد وبنادم شوغير واحد بدل رقم dad badan oo runtii waxa maanta halka ku jira hadii gaadiidka tahay hadii shaqaalaha kala tahay baa barbar qaadan doona makarafoonada ku hadlayno iyo store-ka qalabka yaaliyo halkan ku hadlayna hadaba oo wax joogi waxaan soo gabagabeynayaa isku duubnida wada shaqeynta isfahamka wada tashiga guddiga fulinta hadaantiina halkan meena soo gaadhay waxay suudiinta iyo maaragtay isku iyo wada tashiga iyo talada badan ee barasaabka hadaan jirina ma wada shaqeynaa. Assalaamu alaykum.